maamulka dawladda hoose ee degmada Gabiley ayaa maanta bilaabay dhismaha waddo afraad ah oo laga hirgelinayo gudaha magaalada madaxda gobolka Gabiley taasoo wax weyn ka tari doonta horsocodka horumarka bilicda magaalada Gabiley. sidoo kale maamulkan ayaa soo kormeeray sariimada xaafadda Laag Barako dib u dhis balaaran lagu sameynayo waxaana ugu horeyn ka warbixiyay mashaariicdani maayarka magaalada Gabiley iyo golihiisa deegaanka. saaka waxaanu kormeer ku soo marinay mashaariicaha horumarneed ee ka socda magaalada Gabiley. mashaariicahaasi oo mashaariicaha ay fulinayaan golaha deegaanka iyo dawladda hoose Gabiley oo halkan aynu joogno ay ka socoto wadadii labaad ee afraad ee magaalada laga sameeyo nooceeda ah runtii bilic wanaagsan iyo qurux aad iyo aad ugu soo kordhisay. ujeedadu ay tahay golahu uu ka leeyahay in kor loo qaado isu socodka magaalada, in kor loo qaado bilicda magaalada oo waxa weeye la xoojiyo runtii isu socodka iyo quruxdaba ay dadkeenu helaan wadooyin wanaagsan. oo waxa sidoo kale aanu ka nimi sariimadii xaafadda Laag Barako oo ay ka socoto shaqo aad u ballaaran oo dib u habaynaya ballaadhinba. waxaanu soo gabagabaynay wiigii hore wadadii ugu horeysay taariikhda aynu ka sameynay magaalada dalxiiseedka Arabsiyo. waxa sidoo kale iyadana aynu gacanta lagu hayaa xaruntii dabdamiska. mashaariicaha waaweyn waxay ka mid yihiin mashaariicaha golaha deegaanku 2018 fulinayay. waxaa mashaariic socday culayska intaa leeg leh inay dawladda hoose ay ka dhisaso hantidii iyo cashuurtii dadweynaha oo aanay wax contribution oo dadku ay ku leeyihiin aanay jirin. sidoo kale maayar Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa bogaadiyay safarka madaxweynaha qaranku ku joogo gobolada bari ee Somaliland. anigoo ku hadlaya afka dadweynaha reer Gabiley inaan hambalyeeyno madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdigu hogaaminayo ee safarka ku gaala bixinaya gobolada bariga ugu tala gashanay magaalada Gabiley inaan gaariga cala sakad ay laamin noqoto mustaqbalka. waayo waxaanu taa maanta ku dhiiranaynaa wadada weyn ee afartahaada ee halbowleenu taagannahay. waxaan leeyahay maanta dadweynaha aniga uga faa'iideysanaya cashuurtii aad bixiseen iyo qiimihii ay lahayd wataa idin soo noqotay. marka waxaan leeyahay cashuurta aad bixinasaan meel kale kuma dhacaso ee idinka ayaa idinku soo celinaya. markii horuun bay markii dhagaxa la dhigayay maanta alxamdulillah way dhammaystiran tahay wadadii oo waafiyi. waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa wixii aan ku hameeyna golo deegaan ahaan in uu noo hirgalay. waliba waxay noqonaysaa wadada ugu halbowlaha ugu wanaagsan. ganacsi badan baa ka furmi doona. wadada ugu bilicda wanaagsan ay noqon doontaa marka waxa weeyaan amaamirkii golaha deegaanka oo ay fulinayaan guddigii fulinta oo maayarka horkacayo tan iyo qaar fara badan oo kale iyo qaar soo socdaba waa looga fadhiyaa. maanta waxaan joognaa waddo afraad ah oo aan noqonaysa tii labaad ee ay yeelato magaalada Gabiley. wadadaasi waxay noqonaysaa waddo qiimo leh oo qiimo u leh dadweynaha reer Gabiley. dadweynaha reer Gabileyna waa inay gartaan in waddadu qiimo leedahay waayo waddadu waxay soo kordhinaysaa dhaqaale. waa Yelna Xaji, telefishinka qaranka Somaliland, Gabiley.